golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku meel mariyeen hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo siyaasadda isbeddelka cimilada. shirka golaha wasiirada uu shir gudoomiye hay'adda ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sidoo kale lagu ansixiyay istiraatiijiyadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka. axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa, heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, iyo heshiiska ilaalinta laba jeer canshuuridda iyo ka hortagga la baxsiga canshuuraha saaran dakhliga u dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Qatar. sida uu sheegay hay'adaha wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud. waxaa maanta lagu ansixiyay golaha wasiirada siyaasadda isbeddelka cimilada. waxaa kaloo la ansixiyay siyaasadda hindis sharciyeedka hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo istiraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga. waxaa kaloo maanta la ansixiyay axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa, hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta ee aqoonsiga dadweynaha oo wasaaradda arrimaha gudaha keentay, heshiiska Soomaaliya iyo Qatar ee dhinaca canshuuraha ah, iyo heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga xagga waxbarashada ah. kuwaas waxay ahaayeen hindis sharciyada iyo siyaasadaha maanta ay golaha wasiirada si aqlabiyad leh uu ku ansixiyay. kadib waxaan dhageysanay warbixin dheer oo wasiirka waxbarashada uu noo soo jeediyay Mudane Goodax oo looga hadlayay siyaabaha loo dhiirigelin karo loona tayeyn karo waxbarashada Soomaaliya oo ay ognahay 10 sano ugu dambeysay ay soo qaadatay marxalado kala duwan, maanta meel fiican marayso laakiin wali u baahan in la dardargeliyo. waxaan ognahay in manhajka fasalada koowaad ilaa 12aad ay Soomaali ku qoran yihiin Soomaaliya ah, tayeynta macallimiinta ardayda, kormeeridda iyo korjoogteynta wasaaradda waxbarashada iyo goobaha waxbarasho in la tayeeyo. marka wasiirku wuxuu noogu waramay si dheer meesha ay maanta u marayso iyo taadiinta ay wasaaradda iyo dadaalka wasaaradda ku wado si xoojinta waxbarashada wadanka. kadib waxaan dhageysanay warbixin kooban ay wasaaradda gaadiidka dekedaha inoo soo jeedisay wasiir Maryam oo ku saabsan heshiiska Soomaaliya dekeda Soomaaliya iyo Albayrak ay galeen oo muddo 3 sano iyo bar intay dawladdan jirtay uu wada hadaladeeda ay socdeen oo haddana meel fiican soo gaaray ay ugu weyn yihiin saamin qaybsiga faa'iidada ka soo baxda dekeda ay dawladda ay kala qaadanayso. qodobo 7 ah ayay ahaayeen oo ay heshiiska wasaaradda ay kula heshiinaysay Albayrak. waxaana muddo dhow khamiis soo socota haduu Ilaahay la keeni doonaa faahfaahinta heshiiskaasi oo dhameystiran si ay golaha wasiirada go'aan ugu gaaraan. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.